wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ayaa kulan heer sare ah u qabatay wasaaradaha dowlad goboleedka Hirshabelle, bulshada rayidka iyo clusterska ka shaqeeya gargaarka. Shirka ayaa loogu hadlayay yareynta khataraha musiibooyinka dabiiciga iyo kuwa aan dabiiciga ahayn. Shirka oo socon doona 2 maalmood ayaa lagu hadli doonaa doorka wasaaradaha kala duwan ee Hirshabelle ee ku yeelan doonaan ka hortagga u diyaargarowga iyo yareynta musiibooyinka. Agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdifataax Maxamed Yuusuf iyo kooxda farsamada ayaa shirka hogaamin doona maalmaha uu socon doona, iyaduna laga wada hadli doona habka ugu wanaagsan ee lagu yareyn karo khataraha iyo dhibaatooyinka ka dhasha musiibooyinka, waxaana dooda ugu badan laga dhigi doonaa nidaamka bixiya digniinaha hore early warning system. Wasiirka wasaaradda gargaarka Cabdi Mahad Cabdullaahi Qorgaab ayaa daafuray shirkani kana warbixiyay ahmiyadda shirka iyo ujeedooyinka laga leeyahay. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. maanta waxaan daahfuraynaa shir looga hadlayo DRR ama ka hortagga iyo yareynta khataraha musiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle. shirkan waxaa ka soo qayb galay line ministryga, sidoo kale humanitarian clusterska iyo civil society group. sidoo kale shirkani wuxuu socon doonaa oo aan maanta daahfurnay wuxuu socon doonaa ilaa iyo 2 maalmood oo maxaa la yiraahdaa ayaa lagu gorfayn doonaa. shirkan waxaa lagu gorfayn doonaa sidaan hore idinku sheegay khataraha musiibooyinka iyo ka hortagga dowlad goboleedka Hirshabelle. shirkani waxaan ku sheegaa ay yeelan doonaan dadka wasaaradaha ama maxaa la yiraahdaa clusterska ee ka soo qayb galay waxay ku yeelan doonaan ama waxay qaadan doonaan roolkooda, sidoo kale inputkoodii ay maxaan ku sheegaa halkaasi ku soo biirin doonaan. waan mar labaad iyo mar saddexaadna waa uga mahadcelinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Yusuf Maxamed Ahmed, Bulsha TV, Jowhar.